السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وما هدسك له ولا ليال. إن شاء الله تعالى وحير بان بدامين دونا إن شاء الله تعالى كديران مايو وما سنتهين dad aad u fara badan oo asxaabtayda ah meel kastoo joogtaanba waxa weeyaan aad bay arrinkii uga xumaadeen oo aan ila soo xiriireen waxaan codsanayaa inaan isoo wicin intaan maarta hawsha ku jiro insha Allah taala khadkaysana iga soo wicin marka waxa inta badan iga codsadeen inaan clipkan iska daayo laakiin clipkan waan jeclaan lahaa walaalayaal inaan iska daayo laakiin waxaan isaga daynayn hal arrin baan rabaa kaliya inaan xooga ku saaro insha Allah taala arrinkaasina ay iga harto oo dhan u dhacdo insha Allah taala walaalayaal waxaan joogaa maalin dhaweyd meeshaan in kala soo hadlayay baan joogaa oo ahayd Safo iyo Marwa waa garanaysaan halkaasaan joogaa salaada casar baan ka soo baxnay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala beedkiisa mar walba nagu soo celceliya oo na keena walaalayaal kuna dheeraan maayo insha Allah taala ku dheeraan maayo insha Allah taala horta waa mahadsantihiin saad wax badan ila fahamteen sida sharafta iyo karaamada leh ee aad ila qeyrooteen aad baan maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka Allah idin saaro wax walbana waa idin xaqiiqoobeen wax walbana ilaahay baa subhanahu wa ta'ala cadeeyay laana qofka miskiinka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiiskii qudsiga ahaa 40 nabawi ku jiray waa tuu yiri adoomadaydiyo aniga naftaydii ka xarimay dulmi haystulminina waa tuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala ba sidaas nale marka dulmigu shay xun waay mid kale qofka la dulmiyaa waa qof dacwadiisu mustajaabo tahay oo isla markiiba laga aqbalay anigu laakiin xumaan u qoori maayo habaarna u qoori maayo ma habaaray ilaahay ma ila maalinkii waxaan lahaa ilaahu soo hanuuni hadduu hanuun u qoran yahay ilaahu hanuun وانا كلمة صحوة مركب ولا ليال وحن ربا إن شاء الله تعالى أن كل ديران مايو وحن ربا لبا أريموت كلية إنان سوق هوبو أو مارتي لبا أريموت كدكتو لبا أريموتنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى آت سميسان غلط كذا صحدا اللي يدونكم مرخانتي الباتين موقت abtiyaashay horta in badan oo fiican way la soo xiriireen waa dad fiican waa dad nasaba waa dad gob ah ma garanaysa laakiin hal qof ama laba qof oo xun u niximaayo kamana go'y karo waa abtiyaday way xasha wujud xumaan uma quuro waxaan hadda halkaa u taaganahay wax kale ma aha aniga cirdigayga iyo sharaftayda haddii meel looga dhici lahaa kama hadleen waligay baa maaragtay annaga wax walba nala ka sheegi jiray waad ogeydeen wixii la doonaa nala ku oran jiray taasu dhib ma leh nin ragaad u tahay laakiin hooyada oo duruufaysan oo duruufta uu sababay ninkii qabay oo sidaa loo galay in adigii lagugu ceebayo kaaga daranka cidda ceebaynaysaa ciddii ay ka dhalatay tahay ciddii ay ka dhalatay arkaasa macna macquul ila noqon waayay gobannimo ila noqon waayay marka abtiyada laakiin waan ka raali gelinayaa in badan oo siday qaabkay ma garanaysaa dadku si in fiican baan hooyaday xalay baan wada hadlayn alxamdulillah hooyaday wax walba iga warantay warkeeduna wuxuu ku cad yahay inta idin tiri hooyo waa ku jecelahay bay tiri jannadii bay igu ducaysay janno wax ka fiican ma jiro adduun iyo aakhiraba waan ku ducaayay markhaanti baad iga tiin hooyaday
markaan soo baxayay baan wada xiriiray intaa waa wada walaalahay baan wada xiriiray kuwa kale kaamirada iska qarinayo aan ogahay walaalahaya oo wiilka iyo gabadha kala baan wada xiriiray marka reerkayga saasaan ula socdaa laakiin waxaan idin sheegayaa hal dib oo meesha ku jirta baa jirta taasaan marka maanta u soo galay inaan idin bayaaniyo waxna laga qabto insha Allah ta'ala halka arrin walaalayaal waxa weeyaan wax kala maaha waa ninka iska dhigaya naasixa oo aniga maaragtay in naseexaynaya oo le arrinkaas waa sida ninka odaga ah waxa la sheegay horta inay odaga isku reer yihiin odagana ay shirka yihiin hawsha la helayo iyo nadaabka la helayo lagu tugsanayana inay shirka ku wada yihiin baa la sheegay waa ninka odaga iyo adeerkay waa shirku labadooda ilaahay wuxuu ka qirsiiyay oo ka soo iftiimiyay miskiin baan ahay xaramkii baan joogaa waa lay dulmiyay ilaahay wuxuu ka soo iftiimiyay inuu afkiisa ilaahay ka keeno intaana dad badan anigu laftigaygu aan dulmin inuu yiraahdo ana ka dambeeyay ki Garcia TV kiisina ana ka dambeeyay kana ana ka dambeeyay waxaan ugu soo noqday marka marlabaadka muxuu soo qaatay walajeedada uu kala yaana maxay tahay walaalayaal ninkaas horta waxaan leeyahay horta aniga abtigay baa tahay wali waa isku xushmaynaya xushmadii adigu waa ka tagtay si aan caadi ahayn oo wuxuushnimo aba u dhaqantay hooyaday waa eedada waa hooyada inaad markasta halka soo dhigto oo social media oo tiraahdo sidaas yeel oo guri noo dhis saas yeel waliba waan ku ogahay kaamirada inta gadaal ka martay baad amraysay markii hooyada ii ducaynaysay oo lahayd waa ka wiilkaygu wax walba waa oo qalada way dhaceen hooyaday markay lahayd aniga ay difaacaysay yaa adigu dhinacana martay odagaana la hadlaysay odagaad la hadlaysay waa ku ogahay oo maxaad lahayd naga jooji habarta murankeeda naga jooji yay wax badan nagu qarxine naga jooji murankeeda marka walaalkayow horta haddaan naasix tahay abtiyow baan ku leeyahay waliba abtiyow haddaan naasix tahay oo qof wanaagsan tahay oo nin goba tahay oo wax isku falaya anaa ila soo xiriir lahay telefoonkayga nin caana baan ahay xamar oo dhan baa layga yaqaan baydhabo oo dhan baa layga yaqaan meel kasta layga yaqaan markiskayga layga yaqaan telefoon hatta markiska waxa dhigta intaas oo boqol oo qof baa dhigta oo reer koonfur galbeed abtiyaashay xaasha wujud intaas oo boqol baa dhigta telefoonkayga soo heli kartay WhatsApp-kayga soo heli kartay waad ila soo xiriiri kartay waxaad oran kartay abti uu saasay wuxuu jiraan maxaan sameynaa gurigii waa la gubay gurigaad sheegayso oo waa la gubay aad leedahay inaad ila soo xirto tiraa guri uu saasay wuxuu dhiceen aniga waad ogtaa waxa ila eegatay markaan xaramka soo galay baad ila eegatay hooyada markaan xaramka soo galay baad ila eegatay ilaahay ka baqmayso bina aadan ka baqmayso waxa weeyaan diin ku celisa haddaad garanayso abtinimo garanayso oo wax walba aynu isu nahay aad garanayso waxaad ma samayseen kaaga daraka markii hore samaysay dhib ma leh mar dambe haddana kuma soo celiseen waxa kaaga sii daran wiilaan adeerku ah wiilka waalan dhalay baa waxaad u dhiibtay bahalihii kabaha lagu baalashay jiray kaba baalash baad u dhiibtay inaadan xishoonay wax isku falayn markaasaa tiri reerka dhan wuxuu ku tirsan yahay wiilkan waa tuksi caadi ah maxaa tiri reerka dhan been baad sheegtay reerka cabdi nin la yiraahdaa jooga oo gaari wada oo biila oo hooyaday wuxuu keena ma garad ninkaasaa jooga sharaftiisa iyo karaamadiisana meel baad uga dhacday hadduu isagu og yahay isagay u taala hadduusan ogeynna waxa weeye sharafkiisaad meel uga dhacday wiilu adeer u yahay ba waxaad ka dhigtay baalashle waan miskiina waxba ogeyn oo dambiil u soo gaday waa filin aad isla jilaysaan adiyo adeer wayna muuqataa wayna idinka soo baxday ilaahay baa idinka soo saaray subxaanahu wa tacaala safayo marwaan joogaa meeshaan joogaa waa xaramkii meel dadka lagu gardaraysto maaha meel dadka loogu gafo maaha ilintaydii baa daadiseen abtiyow ilintaydii baa bannaanka u daadisay waxaad igaga ciyaartay cibaadadaydii baa ku ciyaartay
لما هبين ما أخان سدانها أبتيو إلهي بان خداري وحاad samaysay ma wax xunba ma wax fiican bal Soomaalidaas waa ku qarqaatay ya ma wax xunba ma waa wax fiican ya marka adiga dib male adiga warkaagu waa cadiya adiga warkaagu waa cadiyayo wuxuu ku cadiyahay waadigii adiga isqanjiirinayo lahayd guriina loo dhisan rabna iyo baalkii guriyahana ina cunta bartaa anigu hooyaday halkeeda ana haya hooyaday halkeeda hooyaday meel dambe oo loo baalkeenayo ama loo tuqsanayo ma jirto hooyaday intaan u imaanayo kaliya igankeed xigta haddaad xishoonaysaan oo wax isku falaysaan oo bini aadam wax isku falayatihiin wiilkaad abtiga u tihiin maalin kasta inaad ilmadiisa banaanka u daadisaan xaramka ka xishooda وهذا أبتياشي تهين وضد نسبتين نسب يا وحن كما هاد لكرو أنا معنا وحن هو يضي أقبتي مركان إديني ماذا كهالليا هرتينا كهالليا أنت وحيابود أو يقول دعي هرتينا كهالليا إلهي بأوك لكن صوب بندق ما يحاشا وجود ضد قبا بانكدش قب إلهي بانكدش وحن مصبين كرو دقن كيغا ما dhaqankayaga ma aha annaga waxaas abtiyow aniga waxba ima aadan hambayn waa markii labaad ee aad hooyaday soo geliso aniga yahay waxa doonto igu sheeg waa ku ogolaay hooyaday ka daa hooyaday waa xanuunsan tahay hooyaday ka daa haddaadan habaar rabin hooyaday ka daa sida ku ciyaarin waa hooyadaayoo kale hooyadaayoo kale way ka xishood ciil bay hoosta ka qabtaa waan ogahay ana hooyaday og ma garad wax walbana way iga warantay waxaan ku sheegayaa abtiyow anigana inaan ilmadayda daadiso waxba ku falin ku raaxaysan wiil aad abti u tahay oo ilaahay u toobad keenay oo xaramkii jooga حرمكي إلهي ويلي جوغا وبشهر رمضان كفايدة يسلها إناد كو عيارتو وحن كوكو شاكو كرماي أبتيو وحن كوكو شاكو كرماي وعلى الحمو تاسال كاسان كاقب حيا لكن وحن كو شاكو يا أبتيو أنا قورتو وحن الله يا هدا قدب كالي وحاوي وحن الله يا lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed oo dhan mudane madaxweyne dalka xilba ka saaran dadka reer koonfur galbeed baa lagu doortay ilaahay ka sokow dawladda federaalka ka sokow reer koonfur galbeed baa lagu doortay iyagoo dhan baad mas'uul u tahay ilaahay baan kugu dhaariyay mar abti baan ku ahay aniga abti ku ah sida la ii sheegay gabar ma reexaana ku dhashay abtiga baan ahay marna abti baad ii tahay adiga abti ah waxay dhashay xaajiyad hooyaday oo reer koonfur galbeeda baa marna i dhashay adigu mar abti ah aniguna mar baan abti ku ahay ilaahay baan kugu dhaariyay abtiga oo halka jooga oo xaramkii jooga ilmadiisa ninka daadinaya oo banaanka ku daadinaya haddaad iga naxayso oo abtiga ay tahay ducadayda waan ku soo duceynaya xaramkan kaaga duceynaya ducadayda lafta gareeno arrinka wax ka qabo oo ninka cadaaladda ii mari ninkaas waa qirtay waxaan qirayaa dambi inaysan lahayn gaarsiya ee isagu dambi leeyahay isaga dambi leh gaarsiya hadda dambi ma leh xaramkii baan joogaa cidna ku takrifali maayo waa abtiyaday gaarsiya dambi ma lehdin isaga dambi gale waa qirtay ninkaasaan haystaano lafta gareenow ha ku raaxaysan ilmada iga dhacaysa oo xaramka la joogo ha ku raaxaysan lafta gareenow ilaahay intaad ka baqdo ninka cadaaladda isa anoo qoslaaya rabadaanku ha dhasho anoo qoslaaya haddaad islaam tahay midda kale waxaan kaloo la hadlayaa ninka kaloo la hadlayaa waxa weeye
اسمع لين كريان ولا ليال اسمع لين كريان والله بالله سيدانا هي كرناي نينك كلا الله الله waxa way waxaan kala hadlayaa saddex laba wasiir baan la hadlayaa wasiir waa Ilyas nin kale wasiirka warfaafinta mudana Ilyas abtiyow Ilyasow say soo wicin walaal abtiyow Ilyasow waxaan kugu tuhmayaa khayr fara badan Dubai markaan joogay oo wixii qurunka ahaa aan ku jiray Universal baan ka daawan jiray adigu oo quraanka aad yaabayso sida aad u aqriyayso ducaada dadka halka ka leeyliya abtiyow khayr badan baan kugu tuhmaya abtiyow nin wadaada baan kugu tuhmaya abtiyow anigoo ah wiil aad abti u tihiin oo xaramkii jooga ninka ku raaxaysanaya oo intayda wax iga qabta cadaaladda iyo marsiya hooyada intaan idinka imaanayo kaliya igu sima abtiyow Ilyasow adaa kula hadlaya anshaxi saxaafadda lagu ciyaaray anshaxi saxaafadda baa lagu ciyaaray anshaxi bini'aadantinimada ma aha muslimnimo ma aha hooyada adiga waa hooyadaayo kale ka soo qaad Ilyasow waa hooyadaayo kale hooyaday waa taadoo kale ka soo qaataadoo kale oo inta ninkaas soo qaato xoog kaga duubo oo yiraahdo waliba dhageyso kilibyada dhageyso labada kilib dhageyso madaxweynaha dhageysi wuxuu leeyahay noo soo dir lacag aan guri ku dhisano abtiyow Ilyasow arrinkaas saxaafadda nimanka sidaa sameeyay mudankooda marsi ninka sidaa aad marsiiyay oo sidaa sameeyay anu adeerka hadda waa iscadeeyay waxba uma haysto adeerkay waxba uma haysto warkiisu waa cad yahay warkiisa Ilaahay baa ka keenay wuxuu damacsanaayo dhan waa la ogyahay Soomaalina ogaatay muslimku ogaa aniga ninkan rabo waa ninkii cad waxa igu sameeyay waa ninkii foolxumada igu sameeyay waliba abtigaya iga xishoon waay aniga wuxuu doonahay iga sheego waa ogolahay Ahmed Biif Ahmed Khayr baa sidaas hayra wuxuu doonahay yira laakiin caarka iyo ma garanaysa dumarka iyo birimageydada in la iska maro abtiyo wax saxsan ma Ilyasow nin diin le baa tahay abtigay baa tahay nin diin le baa kugu tuhmaya abtiyo Ilyasow wax ka qabo wasiirka kana la hadlaya wasiirka cadaaladda abtiyo adigana ninka cadaaladda marsi hooyaday kilibada ka soo duubanaya hooyaday dadka u sheegaya war sawtii la yiri ceebaha hal asturo war aniga la ila soo xiriiri kara war Sacuudiga aan jooga war markii sulsunan deganahay war hooyaday sida ka daaya war hooyaday kubadda ka dhiganina isqabta walaalayaal bilis isqabta way idin bariyaya abtiyaalow isqabta calool xumada iga daaya hay guridin calool xumo aniga hooyaday waa waasheen aniga ma inay waashaan madaxa inay gashaan ma aragtaa abtiyaalow iga xishooda abtiyaalow hooyaday nolol fiican bay ku noolay 8 bilood waxaan xusuustaa hooyaday way la hadashay hadal baan ku soo daayay hal qodob baan ku soo daayay inaan nin gob ahay baan ku sheegaya abtiyow hal hadal baan ku soo daayay waxaan hooyo maxaa ka doonaysaa noqon aniga ila joog intay iska cayisay iska naxday oo fiicnaatay markii sulsul ana guursaday oo jooga waxay igu tiri hooyo waxay tiri hooyo muslimka adduunka lagu dhibaa hadalkaas laftigeeda tiri waa naxay waxay tiri hooyo muslimka adduunka si degan intay ila hadashay waxay tiri hooyo muslimka adduunka lagu dhibaa raggan oo dhan iyo waxaan oo dhan waa wada dhufaan soconaya waxa la waxaad ii soo dirtana waa cunaya si aan yeelo ma aqaan laakiin hooyo cimri baan iska joogaa waxaan sameeyo garan maayo waxaad yeelaysaa hooyo ifasax waa ku duceeyay adduun iyo aakhiraba waan ku duceeyay oo madaxa iga dhunkata oo meel kasta iga dhunkata oo tir hooyo ifasax oo iida aan hal mar u tagay wax yar soo eegay aniga waxaan islahaa wax yar bay u tagaysaa oo way soo arkaysaa kadibna waa ku soo laabanaysaa imaba soo laabanba saasuu sidiisa hawshiisa ku watay marka anna waxaan ka xishooday hooyada inaan joog iraahdo laana hooyada qalbigeedaan ilaalinaya waa hooyo waa dulman tahay waa miskiinad laakiin maxaan ilaalinayaa anigu hooyada qalbigeedaan ilaalinaya
walaal waxaan ilaalinayaa hooyaday baan qalbigeeda ilaalinayaa hooyaday qalbigeedaan ilaalinaya abtiyaalo saasaan u soo fasaxay oo adeerkay ugu soo fasaxay waxyaabo badan baa jira markaan baydhabo idinku imaado baan idinka warrami doonaa odagaas gartiisa meel bay taallaa dhib ma leh yaa abtiyaalow haddaad isqabataan oo iga qabanaysaan ninkaas biliis waa idin baryayaa iga qabta abtiyaalow iga qabta abtiyaalow iga qabta abtiyaalow ninkaasi cadaaladda ii mariya intaasaan ku raaxaysan karaa qalbigaygaa degaya cibaadadaydaa soo noqonaysa abtiyaalow biliis waa idin baryayaa ninka waxaa sameeyey oo qirtay ka daba taga meeshuu joogo uga daba taga intaasu baan idin oran lahaa waana idiin imaanayaa insha allahu waa idiin imaanayaa baydha baan idinku imaan doonaa abtiyaalow wasiirka cadaaladda wasiir Ilyaas madaxweyne lafta gareen abtiyow marna abti baa ku ahay marna adaa abti ii ah hadalkaasu ha ku galo abtiyow marna abti baan ku ahay marna abti baad ii tahay lafta gareenow wax ka qabo arrinkaa ninka cadaaladda ii keen anigu hooyada wax kale uma rabo anaa ka haysanaya aniga haysanaya meeshaan doonaan la tegaya xaramkaan geysanaya meel allaale meeshaan doono baan hooyaday waa ahlu janno miskiinad waa saabirad way sabirtay dhibtii bay ku sabirtay ciyaalkaas hooyadood agteeda meelahaasaa lagu qabaa ciyaalka hooyadoodaa loo geynaya ciyaal hooyadood lagama kaxayo hooyadood u geeya anigana hooyaday siiya bas hooyaa dhashay oo joogto oo 20 jira ciyaalka hooyadood ha loo geeyo hooyaday inay madaxa ka cunaan ma aha in hooyaday lagu tugsadana ma aha xaraam abtiyaalow ha ku raaxaysanina oohintayda ha ku raaxaysanina waa idinku soo celcelinaya abtiyaalow oohintaa iga dhacaysa oo xaramka igaga dhacaysa hay igu soo celcelinina miskiin baan ahay taayib ilaahay dartii u toobad keenay baan ahay 60 sanaan marayaa 60 sano baan marayaa oo aan rabaa inaan ku rabadaansado marka waswaas iga gelinina shaydaan yaan la igu noqon wixii shaydaanka igu noqon lahaa iga qabta yaa waka hadde markaa soo baxayay buu ila soo hadli kari lahaa hadduu khayr yahay oo khayr miirayo markaa soo baxayay hooyaday baan la hadlay markaasuu oran lahaa wareedha axmedow waxaanaa jira waa simbal waa qaban lahaa qof baan ugu dhiibi lahaa kolle isagoo uma dhiibeen laakiin waa ogahay waa ka aamin baxay heer waxaan gaaray baqaaladda iyo meesha u dhow aan idhaahdo hooyo tag halkaa tag telefoonka iska ilaali xaggaa tag telefoonkaba looma ogola inkastoo looma ogolay walaalayaalow ilaahay baan idinku dhaariyey ceebta waa hooyadiinoo kale waa hooyadiinoo kale xataa waa hooyo oo weliba xanuunsanaysa iga daaya marka waxaa la midida qofka kugu dhuftay iyo qofka kugu walwalaaqa kee daran kan kugu walwalaaqaa daran waa igu walwalaaqdeen warankii intaasaa ay geliseen basa igu walwalaaqdeen li'annahu aniga wax walba baan ku yidhi diyaar baan waa anaa dembigaygu iga badnaa kayga iga badnaa diyaar wax walba inaa iga sheegtaa waa ogolahay abtiyow miskiin ilaahay u noqday baan ahay toobad keenay laakiin hooyaday waa hooyo inaa halkaas soo istaajisaan oo tiraahdaa wakaa halkaas saasay tahay oo saa ayaa ka dhigay lacagtii aan ugu diray yaa cunay adeerkiin baa cunay ninkaas odagaa baa cunay wax walba isagaa cunay way og yihiin walaalahay baa og dadkoo dhan baa og ehelkaa og waa gar naqsanaynaa dhib male anigu waa idiin imaan doonaa ila soo xiriira abtiyow Ilyaasow ila soo xiriir oo lafta gareenow madaxweynow dadkaasoo dhan baa lagu dhaariyey ilaahay hortiis reer koonfur galbeed oo dhan baad u dhaarsantahay nin diimeedna waa kugu ogahay adiga lafta gareenow xataa waa nin diimeed baa tahay nin odayaa tahay abtiyow arrinkaa wax ka qabo hooyaday kaamkaa halkaas lagu jiidanayo oo midtaa la leeyahay ninka cadaaladda halay mar bas intaasaa ku raaxaysanay waa idin soo ducaynaya xaramkaan idinka soo ducaynaya duca haddaa rabtaan wax kaloo aan idin oran karaa ma jiro si kaloo aan idin yeeli karaa ma jirto marka hooyaday waan yaqiinsaday hooyaday waa miskiinad waa saabirad aad bay u sabirtay dhibti baa ka fatay waa ka batay anigana waxaan sir hooyada mar walba qalbigeeda ilaali anoo ka xun
walaashay hadda waa maqan tahay meel kale jirtaa way ka xumaatay iyadoo oo inaysay soo wici jirtay hooyo saasaa loo galay aakhirkii waxaan oran jiray ha ii sheeginina hooyo ha ii soo sheeginina please waydin baryaya laanno aabihiin baa saa u galaya idinkuna raalli baad uga tihiin ha ii sheeginina oran jiray wallah ha intaad soo wacdaan hooyo asaa loo galaya hooyo ku ayga kaxaysatay way baa ku abtiyaalo xishooda oo wax isku fala haddaad iga qaban weydaan ninka oo cadaaladda ii hor keeni weydaan reer abtiyow hadda waa wax kale weeye abtiyaalo anigu tol baan ka dhashay dadna waa leeyahay dad baan leeyahay oon ka dhashay laakiin weli u ergeen maayo waxbaan iskula haraya way u jeedaan lifekaasay ku jiraan yaa si allaala insaan hooyaday ku heli karo waa ku raadsanaya bas anigu hooyaday baan idinka rabaa gurya ciddaa loo dhisayaa iyaday u taalla laakiin aniga hooyaday baa i khusaysa iyaday iga saaran tahay jannadaydaabaa ku xiran way ii ducaysay jannatulfardows aclaa bay iigu ducaysay anna waa u ducayaa intaa waa u ducaynaya hooyaday anay ila noonaanaysa anaana haysanaya anaa waxaan doono u xallaale waxaan qabay ila qabaysaa hooyaday igu soo wareejiye intaasaa ku dhaafayaa waad mahadsantihiin wallaahi bilaahi waa idiin mahad celinayaa waa ila taraaraxday waad u jeedaan waxay samaynayo waa markii labaad inaan iska daayo waa rabay dad badan baa igula taliyey waad mahadsantihiin dad badan baa igula taliyey laakiin ninkaasaa rabay in cadaaladda lay marsiiyo reer abtiyada iyo dawladda iyo dhammaanna ay isu kaashadaan oo cadaaladda ilay marsiiya anshaxa saxaafadda ku ciyaaray anshaxa bini'aadantinimada ku ciyaaray suu doona yeelayo ilaahay baan kugu dhaariyay abti Ilyaasow bal ninka miyaad aragtay klibkaygii iyo isku soo lifaaqay klib aan waxaan mar hore ka toobad keenay isku soo lifaaqay iyo hooyaday oo le waa ka anaaba ku raaxaysanaya kula war miyaadan ilaahay ka baqay miyaadan muslim ahayn miyaadan adduunyadan ka tagay maxaad ku raaxaysanaysaa laqwi iyo lahw maxaad ka faa'iidaysaa madaxaad iga gasheen madaxa sida hooyaday loo wareeriyay oo madaxa looga qaaday badanna ii gali rabtaan cibaadadayda hadda ma garanayo laba habeen wax ma cunin laba habeen saanahaag ma garan karo dadkii bay iga nahay wax allaala waxaan samayn karo ma jiro in xabsi ku jira oo kale laakiin ilaahay baa faraj furayo ilaahay waa casiis faraj buu furay ilaahay hooyadayna uu ka hadalsiiyey adeerkayna uu ka hadalsiiyey qadiyadiina waa loo jeedaa waxay tahay siday tahay labadaba ilaahay waa ka hadalsiiyey miskiin baan halkaan la dulminaya marka oohintayda kaliya ku raaxaysan warku idin cadiyahay oohintayda kaliya ku raaxaysanina ha ku raaxaysanina ee arrinkaa wax ka qabta qof kastow wasiir kastow lafta gareen u geey abtigay u geey abtigaabaa sidaas adigana abtigaa weeye isaguna waa abtigaa runta u sheeg arrinkaa wax ka qabto cadaaladana ha lay marsiiyo ninkaasaan ka rabaa keliya cadaaladda in la marsiiyo haddaan cadaalad haddaan helo anigu waa raaxaysanaya niyaddaa ii degaysa qalbigaa ii degaya soomaaliya aan cadaalad aan helo wax kale kama rabo hooyaday anaa u nool cidna loo tugsan maayo cidna loo bahalkayn maayo waa idiin sheeg waxba uma baahna markiskii baan la tegayaa halkaasay ila joogaysaa alxamdulilah waa la soo hadli karaan weliba telefoonnadayday kala soo hadli karaan kulli way haystaan markay u baahdaan waa soo wacaya hooyo haye ma fiican tahay waa dad isdhalay ma kala jari karayo laakiin anay ila joogaysaa xanaanadeedu anay la saaran tahay laanna hooyaday hadda waxbay noqotay duq bay noqotay maskaxdii bay ka wareeriyeen maskaxdii bay ka xanuujiyeen waa xanuunsan tahay anaa xanuunka ka daawaysanaya insha allahu tacaala anaa daawaysanaya intaa may samayn kartaa yaa ii sameeya intaas waa idin ducaynaya ducaan idinku daraya hana iga waswaasanina saacad aakhirkii baa lagu jiraa maalin jimcada saacad mustajaabaa ku jirta waa ducaysan lahaa hadda waxaan ku ducaysan ma karanayo
بنكرني قلبي يقوم يلبي جرا والله عصر كي مركز تكري دور كي ما سبنا نقدر نسكاه رباطة يرفات كاس ودن نكا أبتغي يبقى يقول سمية ويقول دقي وأبتغي حاسمية أبتغي ولا هي صدق دقي waxay u shiraakoobeen wax kala maaha inay shilimaad yar ku urursadaan bas inta uu sameynaya waa wax ay ku heshiyeen adeerkay iyo ninka odaga bas bay ku xukuumada wuxuu leeyahay sida yeel gadaal buu ka soo maray halka isaga wuxuu tilmaamay tilmaamtu isaga bixinaya ya tilmaamtu bixinaya hooyo insha Allah hooyo xalayna waa kula hadlay kollayba waxba daawan maysay waa ku ogahay hooyo xalayna waa kula hadlay xalayna hooyo waa kula hadlay si fiican baan kula hadlay insha Allah taala hooyo waxa waa ka bogsanaysa ha u bixin hooyo waa abtiyaday waxa saasamay dib male iska dhacda adduunka wax walba lagu arkaa ka xishoon waa waliba waxa la sheegay waa isku family hoose baa la sheegay inay yihiin odaga إن إسكو فاميلي هين نين كسا سمينيا والله يشجع درس بوس كدقة يعني نصيحة وخطرة بوس كدقة أنا سريد وقلي أنا فلان وقضي بوجش كاسو كدقة إلهي نكبر ماي سبحانه وتعالى أنا جو يقول سمينا هايدي وحوكو سمينا كعشون ماي إلهي كعشون ماي بالرمضان بسوق جلسي هندم باشين ولا لو بالرمضان بسوق جلسي مساجد كان كنتو كذا وكل صلاة وبقول كن أو صلاة هلكي صلاة ويرجع عيارسها أنا واحد صوت نمعدا صوت هلكا وين أنا واحد ربطين هذا رجع عيارته أبتيو حدا ربطين أنكو عفيو هرتو هذه كل ما حفين بمايه حدا ربطو لفت الجرين يو إلى أي مدحوينو صاحران وعدالة لقوا مريو إلى عدالة لقوا مريو والله بالله تالله إننا نكلا بحي عدالة إننا قبر عدالة بايدة أنت سأكون سوق بجميني وعبدهم كل يران ماي تجاه الصوت إلهي كبق مسلم كوا كوجه ذا دتكوا كوجه ذا إلهي كبق وحكلهم كويرا وإذا كدري ونوجهي إن إذا كدري لكن مرد ما سوق لي ماي هذا نكاس بالك اللي يقسميه مرد ما سوق لي مياد يقول أركتين أنا اللي يقول ما أركتين فيسبوك يبريان مياد سوق لي جري ما سوق لي جري ولا ليه ما أنا سوق لي جري وإسك عبادة سنجري عبادة إذا سلدوا بنجري ها أنا أدب جيجو يقبضني كي يجيب يقبضنا أنت هذا مدافع إلهي إنه رالي يقول نقطه بهدونية قرآن كي قاعد يسكع آخر سنجر وهي وسواس بعد قررت على الحمى هذه قررتي مرق كوين معرك من رجع هو يدي سلك يعني يالك والله قلت وصلني مرق كوين ده ما بيجر تبع يا والد كواحد يقول مي بسنة هوي حق هذا يقمرت dadka saa u galaya waa dadkii ay soo korsatay dhigeeda iyo dhacaankeeda bay nuugeen qolofteeday nuugeen hooyaday qolofteedii bay nuugeen meel dhigeen dhigeeda iyo dhacaankeeda iyo ku maqayeen aniga waxa weey aanu nin weyn baan u tii laakiin haddana naxariista waa loo kala dhashaa ilaahay baa igu abuuray subxaanahu wa ta'aala hibaysi waa hooyaday waan u dayn jiray ilaahay dartii baan ugu dayn jiray anoo haysan kara oo ila joogi karto baan u dayn jiray iyaga waxaan ugu dayn jiray nin diin baranayo meel jooga baan ahay waxaan oran jiray hooyada qalbigeeda ilaali hooyada ha ku xadgudbin hooyada soo ninka ma rabto hooyada dhib ma leh isaga daa laakiin tii way dhaaftay hooyada inuu ka adeegto maraya oo guriga noo dhisiyo kisaas samay dheh sidaas yeel wax walba inuu ku qasbayna waan ogahay idinkuna waad ogtiin Soomaaliya life dama ma soo galayo waa runtii walaalayaal life badan soo gali maayo ee ninka kaliya meel ah layga saar
madaxweynaha iyo ninkaas wasiir Ilyas waa nin furfuran waa nin dhalinyaro ah waa nin khayr badan ku tuhmayo wasiir Ilyas oo arrinka ka shaqay ninkaas maxkamad hal la keeno ninkaas cadaalad hal la isaar waad fahmi kartaa abtiyo nin xaafid baa tahay abtiyo xaafid القرآن baa tahay anigu tol baan ka dhashay abtiyo wanaagsan kowde igu og meeshaan joogo igu xanaanaya igaga warhaya tolkaasaan leeyahay dhib ma leh anaa ka haysanaya hooyaday anaa ka haysanaya meeshaan joogaan la tegaya idinku kaliya isiiya abtiyaalo والله abtiyaalo isiiya sida ay sameeyeen bilis والله saacadii ijaabada xataa way dhaafaysaa abtiyaalo ku raaxaysanina oo inteeda ku raaxaysanina abtiyaalo way idin imaanaya insha Allah way idin imaanaya lafta gareen iyo wasiir Ilyas iyo wasiirka cadaaladda baan ku celcelinaya abtiyaalo arrinka wax ka qabta ninka qalbigaygu dhaawacay hooyaday qalbigeedu dhaawacay annagoo dhan buu na dhaawacay odagaasina u shida kuwii hore u shida iyaga fahmaya waa fahmayaan iyaga fahmaya madaxweyne lafta gareen cajiladda dhagayso tii ka horeysay dhagayso kuwii ka horeeyay oo la duubay dhagayso wixii kaaga soo baxa ku camal fal abtiyo abti baan ku ahay adiguna abti baad ii tahay ana abti ku ah adiguna abti baad ii tahay abtiyo lafta gareenow xil baa ka saaran dadkaas iga xishooda ilaahay ka xishooda wiilkiinni oo toobad keenay oo ilaahay dartii u toobad keenay oo xaramkii jooga baanahay wiilkiinni iga xishooda mar dambe Facebook ma soo galayo laakiin war fiican aan dadka ka maqlo iyo ninkaas waa la qabtay aan ka maqlo anoo xaramka jooga insha Allah ta'ala ducaad iga helaysaan markaas waa idin ducaynaya qalbigeyguna wuu degayaa bisha Ramadaan nimana codkayda ku raaxaysto oo aan iska dhageysano baan ku cibaadaysan jiray laakiin hadda ma garan karayo say noqonayso mar baan israada diyaaradda ma iska soo raacdaa ma iska soo noqotaa waxaan waa ceeb weeye wax kan wax laga xishoodo weeye iga xishooda intaas ugu filan hooyaday intaas ku filan inaad kubad ku ciyaarto adeerow hooyaday kugu filan intaas yakfi kugu filan kubad ku soo ciyaarto waxaan idinka qariyana markaan idin imaadaan idin sheegay abtiyaal waa garnaqsanayna wax badan baan qarinayaa oo ka xun oo haddaan sheego aan saxaafad lagama hadli karinba mana rabo afkayga Soomaali oo uu ku sameeyay hooyada laakiin xaasha wujuud waxbaan iskula haraya inta muuqata kaliya ta taabanaya dambiile maahay caasin nin ah ilaahay 5 sano 6 sano xaramka kuma soo celiyo عاسي هدانا هي عاسي والدين وبالوالدين إحسان ضي إلهي سبحانه وتعالى حق سمر والبحق والدك كل مانيا حق والدك يحق الله بإلهي كل مانيا سبحانه وتعالى وحق ما قرت لكن $5 ومدري كرو $5 سيكون عضل حبرتا ما بدا هويدي مدحي بو كغلay soo doonu ka yeelay wuxuu doonu ku imisa mobilka ku soo waxaan xusuustaa xataa markaan Dubai joogay wuxuu oran jiray Nairobi iyaga joogan u soo diri jiray markaas wuxuu dhaal lacagtaha inta soo badin anu waa maqlaya laakiin uma sheego hooyada qalbigeedana waa ilaaliya intaas dheh haddana waad maqlayseen isagoo leh guri noodis warguriga maad lacagtaan inta ku soo diray ku dhisato
oo tubaakada iyo balaayada iyo khamriga kulligeen cudur baa idinku wada dhacay waa hooyaday dunuubtaad ka gasheen wiilkaa waalan hooyaday baa laga raacay 6 bilood baa layga qaatay meesha oo aan shubay 6 bilood baan shubay meesha dhaqan celinta waad ogtihiin waan maalintii dhaweyd sheegin markaas bil markuu xiraa oo suu caliye u daadinayay uu soo daayay oo si fiican ay baash uga bixilaa qado iyo quraac iyo cashar loo keenayo ayaad intaad meesha tagteen ka soo deyseen markaasaad maanta waxaa leedihiin gurigiibu naga gubay oo saas lagu sameeyo waa waash dawaanin daroogaska cuna aabihiisaana baray manin xishoonaya caruurtiisana wuxuu rabaa hooyaday inuu madaxa ay ka waalaan macquul maaha dhaqan uma lihin annagu waxaas annaga waxaa dhaqan uma lihin ha anigii aanay isoo korin baa saa uga naxaya idinkoo soo korisay oo idin soo korisay oo waxa weeye intaas inta idinku soo dhex noolayd waad saasaa u gelaysaa bilaahi caleyk maxaad rabtaan meydkeedii iyo bahalkeedii baktigeedii ka tallaabsatee inta hartay siiya aniga bis siiya aniga isiiya bis intaasu igu filan mushkilad intaasu igu filan dhibna intaasu igu filan khalaas in dhibaato igu filan bay tiri farqaan ku haysta in dhibaato igu filan farqaan ku haysta khalaas hay dhibinina marka cibaadadana hayga mashquulinina please haddii kale reer tolkay baan oranayaa gala hawsha haddaad ninkaa i qaban weydaan oo wax i qaban weydaan oo ninkaasi cadaalad ii marsiin weydaan reer tolkay baan la hadlay laakiin weli la hadli maayo waa i maqlayaan waa la hadlayaa laakiin weli la hadli maayo amaan iskula haraya abtiyaalow idinkaa igu filan inaad ninkaa iga qabataan oo ii keentaan baalshida idinkaa igu filan bes anigana hooyaday anaa haysanaya bes markii sunnaan joogaa ceelasha biyo xagu ka yahay waa meel 6,000 7,000 oo qof baa jooga nolosha ku noolayd reer markii soo dhanbay ogyahay nolol fiican bay ku noolayd hooyada caanaheedaan soo qaadaya khayrkeeda halkaas maalkaysanaysa iyo da'daasi wax baranaysay meel fiican bay maraysay wax ka xumaa ma jira laakiin qalbigeeda inaan ilaaliyaan ugu diray mar labaad anaas eedda iska leh eedda hadda anaa isa saaray saa inaan u diraba maahay anna waxaan qalbiga hooyaday baan ilaalinay welina hooyadii sida waa intaasaan idin sheegayaa abtiyaalow wax ka qabta arrinkaas abtiyaalow wax ka qabta waad mahadsantiin mar dambe soo geli maayo mar dambe cibaadadaydaan wadanaya bes ninkaa shaydaanka igu noqday iga qabta bes السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله دقيا والله نظيفنا يا شوي ما شاء حرم كالا دقيا إن شاء الله تعالى تيالو إن شاء الله وهو بس ما شاء الله دقيا مركب تيالو وجد صفية مروة واقع ضي وصفية مروة تيالو جيف يشوك جديدة إن شاء الله وكحرم كنا لا خطة كسعتها الله نظيفنا إن شاء الله تعالى ملك لا تجي مركي أنت أصلا كسوق كوبيا أنت أصلا كسوق كوبيا خير الله يدسيه والله مرد ما سوق لي إن شاء الله بلال كان حوجا يسوق لي ما سوق لي والله طب ما سوق لي خلاص إذا كان يقول فلان idinka igu filan mar dambe soo galay khalaas warkaygu abtiyaal waa dhamaaday intaas ku dhamaaday wad ma santiin abtiyaal halkaas meeshii la ordi jiray waa kaaday waa Safiya Marwa oo jeeda meeshii la ordi jiray abtiyaal marka ilaahay baan idin ku dhaariyay arrinkaas sidaas ah noo ahaado mar dambe ma soo galayo laakiin qiirada waxa iga keenay oo saa ii galaya oo mindida igu mar walba igu dooxaya وأنك واحد يقول سمي لك عدالة الله يكرم لفت قرين وسير إلياس وسير كعدالة وسير كلو حالي الله اللي واجري والله يقول حري مر تيالو عيلك هاي ربي المضى يقطرة تيالو عيب واي سلاس وعيب فضي حضوة قبضني واي وهو يدي نوكله وأنا قبضني إذا كان كرلت وهو يدي كان كرل شيء
waxba ka faa'iidi maysaan وهويو تلكيدي iyo dadkeedii hooyo dadkeedu ma ceebayo hooyo ha aniga maxaa igu eedeynaysan day isaga xilkiisii buu gutay wax kastoon u dirana isaga damkiisa marka abtiyaalo waan salaamaya yaanan taraarixin waxba idinku taraarixi maayo oo maarta hadda is ilaalinaya wali is ilaalinaya wax kale aan sameyn maayo wax kale aan oran maayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala baxqa iftiimiyay marka miskiin baan ahay halkaas aan jooga taayib baan ha taayib baan halkaas aan jooga ilaahay mooyo cid uma baahan miyaanu baan ilaahay baan rabbi baan u baan bas ya rabbi baan gacmaha kor taagtaa markaad rab nimcadaan ku jiro iyo barwaaqadaan ku jiro idinkoo dhan baan idinla jecel in halkan timaadaan sanad walba ku raaxaysataan ya weligay dhibtaan qabo weligay uma sheegin waxaa jira shariif sheekh aadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed weligay dhibkayga uma sheegin 3 sanadood baan anigu sijaayadiisa meesha soo dhigan jiray wallaahi halkaasaan ka sheegay madaxweyne shariif xasan ay maqlayaa baan u malaynay isagana madaxweynihii hore 3 sanadood baan meel ku wada afurayn oo xaramka ah oo geegada hoose ah waa 3 sanadood sijaayada aanu iga tagi jiray abtinimaan u arkay ixtiraam madaxu ii saaraa weligay wax dhibaal kama hadlo weligay lacag hal riyaalna allaha ka dhigay isii ma oran marka abtiyaal way wax gudbinina iskuma xadgudbo abtiyaal abti baan u arkay saasaan u sharfay sijaayadii soo la rabo in la tuuro baan anigu qaataa oo u qaadaa meel u dhigaa la xaramku marka hore ciriiri buu ahaan jiray marka karoor fariiska xoogaa la isu diiday anaa qaada madaxaan saarsada markaasuu hadhowdii iska yimaada hoteelku ka soo baxaa markaasuu meeshiisii yimaada iyadoo u shidan tahay oo sijaayadiisu u taalla abtiyo idinma saasay u samaynaysaa eeb waa abtiyaal insha allah dad badan baa ila soo hadlay abtiyaal badanna way ila soo hadlay waana ogahay waad mahadsantihiin gaarsiiya tifi idinkana waa idin raalli gelinaya anigu nin dadka ku xadgudbaya ma ahi laakiin arrinku hal nin baa ilaahay ku caddeeyey isagaana isku caddeeyey inuu waxaa ka dambeeyey ilaahay baa soo qabtay xaramkaanoo joogaa ilaahay soo wuu caddaystayba intaasaa markhaanti ugu filan bas wuu caddaystay marka waxaan idinka rabaa insha allahu tacaala gaarsiiya intaas insha allahu sameeya waad mahadsantihiin abtiyaal waad mahadsantihiin soomaaliya wixii la diirnaxaya anigu waa xoogaa jadwalkaa iga qaldan wax kale ma jiraan dhib kale ma jiro dee waa iska garanaysaa nin sidaa loo dhibayo oo loo dhibaataynayo oo la rabo fiis iyo tugs iyo balaayo in lagu raadsano marka insha allahu tacaala saasay noo tahay abtiyaalow insha allahu khayr baan idin rajaynayaa labadina ku soo noqdo insha allah hooyadeen nabad isku aragno baan rajayn doonaa biidni illah aad iyo aad baan ogahay inaad ila murugoonaysaan murugta i haysataa idinkana ilaahay murugta ha idinka qaado saad ila murugoonaysaan safa iyo marwaa jooga ilaahay kii caafimaad raba caafimaad ha siiyo ilaahay kii xoola raba xoola ha siiyo ilaahay kii caruur ilaahay kii u baahna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu siiyo ilaahay waxaan uga baryayaa waa shacbaan waqtigii ugu dambaysay wey ilaahay waxaan idinka baryayaa kulligeema jannatul firdaws al-aclaa ilaahay inuu nagu kulmiyo baan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala masaakiin baynu nahay naxnu fuqaraa masaakiin baynu nahay walaalayaal intaasaan ku soo gabagabaynaya ilaahay waxaan ka rajaynayaa hooyadii macaan waan jecelahay insha allahu tacaala nabad baana ku imaan doonaa waad mahadsantihiin abtiyaal aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin arrinkaa waxa laga qabto arrinkaas yaanu dib dambe soo dhigin hadduu soo dhigo waa wax kale markaas waxa weeye abtiyaalow wax kale noqonaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد mahadsantiin aad baad mahadsantiin de waxaan in la raado garan maayo waan idin mahad celinaya waa ila qiirooteen waan ogahay si fiican baad ila qiirooteen wallahi mahad baan idin celinaya waan idin ducaynaya qof walba ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha laga hayo isaga garanay
qof walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u bogsiyo ilaahay baa wax bogsin kara wax walba rabbi baa inoo haya innagoo addoommayna rabbi haddaynu ku xirraanno waxba waayimay isagaa wax walba inoo ballan qaaday subxaanahu wa tacaala wakaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذه هذا ما سنتي واد ما سنتي قلبي يا نيدا وهذه وما سنتي وارنتي والله ما عاصم ما بإيمان كرب وارنت عاصم ما أي كرو عاصم ما إيمان كرو هالك وارن هو يضي إذا يجش عشاء مله لما أنت تضوي يجش عشاء وحي سكر السي أنا يجش عشاء سبت كنت وحويه الحمد لله رب العالمين وهو يسعى سميانا وأنا بحر سميان أنت لا ضل إن شاء الله أبتيارو خير بعد الجيني يا صاحبي يا الصومالي ودن عادي وما سنتي ما سنتي صح إن شاء الله هذا الفي عنه كسو مغلو كفر قلبي هذا الفي عنه أنك مغلو كارسي السلام عليكم